كسيرة تغيرون كتابعي ديل كان كتابعي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صاحب waxaa loo kala saaraa shan. Haddaba adiga waa kee saaxiibka? Haddii aad nagu cusub tahay fadlan subscribe ta saar. Kambalka kana furo si aad u hesho fiidiyoga ugu horeeya. Waxaa la yidhi saaxiibadu waa shan. Saaxiibka hore waa saaxiib sida hawada oo kale ku ah. Waa saaxiib hataa aanad maalin arag ama aad ismaqal ama maalin labaad arkaysaan ama aad ismaqlaysaan waxaad isu tihiin aba aan kala maarmin had iyo jeerna iska warhaya. Saaxiibkani isaga waxaa laga soo qaaday inuu ku yahay sida hawada aad ku nooshahay oo kale isna waxaad u tahay sidaas oo kale. Saaxiibka labaad waa saaxiib sida biyaha oo kale ah. Saaxiibkan qasab maaha inaad maalin walba is aragtaan ama aad ismaqashaan. Waa saaxiib marka aad wax uga baahan tahay una dan sheegato aad waxaad ka heliso isagoo aad isku halleyn karto. Saaxiibka saddexaad waa saaxiib sida hooska oo kale ah. Waxaa laga yaabaa inaad sidaad uga warhayn haddana isagu dushaas kala socdo. Waa saaxiib sharaftaada dhowro meel wax lagaaga sheegayana hadduu arko waxa uu go'aana inuu ku difaaco kaliya intaa kuma eka. Hadduu qudhaada wax sharaftaada xudhimeeyo kugu arkana wuxuu isku dayaa inuu ku waaniyo kuna nasteexeeyo. Saaxiibka afraad waa saaxiib sida dawada oo kale ah. Saaxiibkani waa qof xigmad badan. Wuxuu kala qayb qaataa go'aamadaada mustaqbaleed waxaana uu ku noqdaa la taliye inta aad nooshahayna wax yar baad isagoo kale la kulantaa. Waa saaxiib laga yaabo inaydan had iyo jeer is arag haddana waa qof aad u qalbiga ugu hayso jecel walaaltinimo iyo mid saaxiibtinimoba. Saaxiibka shanaad waa mid sanaysan. Waa kii la yidhi ha laga cararo. Saaxiibkan samaysan waxa uu lagu gartaa dhowr arrimood oo ka mid ah. qodobka koowaad waa maslaxad eegtay. waxaad ku aragtaa maalinta uu dankaa leeyahay uun. qodobka labaad wuu kuu sheekayaa misna kaa sheekaya. hadduu kuu yimaadana sheekuu kuu wada markuu kaasi socdana sheekuu kaasi sidaa. qodobka saddexaad waa qof xasaasiyad qaba. waxaa laga yaabaa hadal aad si u tiri inuu isagu si u qaato in aad la jeedo haddaad wax u sheegto istiraahid. waa qof aad ka baqanaysid inuu si xun u qaato oo uu ka xumaado. barnaamijkii saaxiibtinimada iyo shanta qaybood u kala baxayay halkaasuu inoogu heekayay. intaan midkan oo kale la kulmayno waa walaalkiin MCC wadin leh kulanti wanaagsan. كسيرة تغيرون كتابعي ديل كان كتابعي